qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqa gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب marka la ku soo dhawaada muuqaaladii taxanaha ahaa ee aan halka ku soo baahin jirnay ee ku saabsanaa maadada Ingiriiska gaar ahaan grade-ka 8 halkan waxa ka galeynaa unit-ka sanaad ee the radio waliba questionskiisa koowaad ee ku qoran page-ka 62 title-ka ama ciwaanka questionska wuxuu yahay answer ka jawaab the question su'aalaha from the passage adigoo yaani su'aalaha jawaabada ka soo xiganayo ama ka soo raad-raacay ama ka soo fiirinayo passage-ka ama qormada in full sentences waxaan ugu jawaabaysaa jumlo dhameystiran su'aasha ugu horeysa waxay tahay who invented the radio who invented yaa soo hindisay yaa soo ikhtiraacay the radio raadiyaha answer waxaan dhahaynaa marka it was invented by an Italian engineer called Guglielmo Marconi. It was invented idhawtaanta raadiyaha ama radioga. It was invented radio waxa soo hindisay by an Italian engineer Talyaani ah called oo lagu magacaabay ama loo yaqaano Guglielmo Marconi. Su'aasha labaad ee ku xigto iyaduna waxay tahay what is a radio used for radioga maxaa loo isticmaalaa answer waxaan dhahaynaa marka jawaab radio is used for radioga waxaa loo isticmaalaa to listen in laga dhageysto for news wararka entertainment maaweelada ama madaalada announcement ogeysiiska in laga dhageysto live debates doodaha tooska in laga dhageysto and educational programs iyo in laga dhageysto barnaamijyada waxbarashada marka radio is used for radio waxaa loo isticmaalaa to listen in laga dhageysto for news wararka entertainment maaweelada ama madaalada in laga dhageysto dabcan announcement ogeysiiska in laga dhageysto live debates doodaha tooska in laga dhageysto and iyo in laga dhageysto educational programs barnaamijyada waxbarashada su'aasha saddexaad ku xigto waxay tahay what name is given magacee loo yaqaanaa ama la siiyaa to live broadcast warbaahinta tooska ah what name is given magacee la siiyaa ama loo yaqaanaa to live broadcast warbaahinta tooska ah waxaan dhahaynaa marka answer dabcan wireless radioga wirelesska ah is given ayaa la siiyaa ama loo yaqaanaa to live broadcast warbaahinta tooska ah wireless radioga wirelesska ah is given ayaa la siiyaa ama loo yaqaanaa to live broadcast warbaahinta tooska ah su'aasha afaraad ku xigto iyaduna waxay tahay why do people listen to radios sababteebaa dadku listen u dhageystaan to radios radio ama idaacad dadka maxay u dhageystaan idaacad dabcan su'aasha waa su'aal jawaabo badan waa su'aal open ah waxay ku xirantaa qof walba iyo aragtidiisa iyo siduu yani u arka sababta radio lagu dhageysanayo marka answer radio waxaa u dhageystaa oo ay ka mid tahay waxyaalaha loo dhageysto for relaxing in lagu nasto waxaa laga yaabaa qofka asagoo daalan inuu yimaado isla markaasna uu ku nasto marka for relaxing sidoo kale doing house work inuu ku qabto shaqada guriga qofka doing house work shaqada guriga inuu qof ku qabto laakiin shaqadaasi waa inay tahay shaqo laga qabanayo murqaha yani shaqada laba loo kala saaraa midna waxa laga qabtaa murqaha midna maskaxda laga qabanayo
radio laguma dhegeysan karo dabcan laakiin midda murqaha laga qabanayo ayaa ka hadlayna marka doing housework waxaa laga wadaa shaqada guriga qofka inuu ku qabto laakiin shaqadaas waa inay tahay mid murqaha laga qabanayo sidoo kale radio waxaa u dhegeystaa news monitoring la socodka wararka monitoring dabcan waa la socod news monitoring la socodka wararka aan etc iyo wixii la mid ah marka si kooban waxay noqonaysaa sababta radio dadka u dhegeystaan for relaxing inay ku nastaan doing housework shaqada guriga inay ku qabtaan shaqadaasna waa inay tahay mid murqaha laga qabanayo iyo news monitoring la socodka wararka iyo wixii la mid ah su'aasha shanaad ee ku xigta waxay tahay what would the world be like without radio set what would the world be like caalamka siduu noqon lahaa without radio sets la'aanta radio what would the world be like caalamka siduu noqon lahaa without radio sets la'aanta radio waxaan leenahay marka jawaab without radio sets la'aanta radio they would be right horta dadkaa ku bilaabaynaa they would be right letters warqaday isku qori lahaayeen dadka to each other midba midka kale dadka waxay samayn lahaayeen si yacni ay macluumaad u helaan warbixin u helaan oo deegaankooda ku saabsan waxay isku qori lahaayeen letters warqado sidoo kale and there would be waxaana jiri lahaa gathering isu imaatin in dadka hal meel isugu yeero kadib wixii oo macluumaad ah ama warbixin ah halkaas looga sheego oo sidii marka hore jiri jirtayba in dadka hal meel iskugu yeero kadibna loo soo bandhiga ama loo sheego wixii markaasi jiro su'aasha lixaad ku xigta waxay tahay iyaduna what is your favorite radio program what is your favorite radio program waa maxay barnaamijka radio ee aad xiisaysid favorite waxaa la dhahaa waxyaabaha kale aad ka jeceshahay ama aad ka xiisaysid answer marka waxaa dhahna jawaabta my favorite radio program barnaamijkayga radio ee aan xiiseeyo amaba kuwa kale aan ka xiiseeyo ama aan ka jeclahay is live debates waa doodaha tooska ah my favorite radio program barnaamijkayga radio ee aan xiiseeyo amaba kuwa kale aan ka xiiseeyo is live debates waa doodaha tooska ah su'aasha toddobaad ee ku xigto iyadan waxay tahay what can you learn maxaa ka baran kartaa from radio program barnaamij raadiyaha ama barnaamij ka mid ah raadiyaha oo ah ka baran karta sheeg marka what can you learn maxaa ka baran kartaa from radio program barnaamijka raadiyaha maxaa ka baran kartaa waxaan dhahna marka answer jawaabta waxay noqonaysaa dabcan I can learn waxaan ka baran karaa religious lessons cashiro la xiriira diinta hadday noqoto tafsiirka hadday noqoto maxaa lahaa kutubada aqrintooda iyo dhammaan wax walbo diinta relate la leh ama xiriir leh ayaa marka ka baran karaa sidoo kale waxaa ka baran karaa scientific subjects maadooyinka cilmiga ayaan ka baran karaa scientific subjects waa maadooyinka cilmiga waxaa kaloo ka baran karaa wax loo yaqaano general knowledge aqoon guuda ka baran kartaa oo su'aalo isweydiinayo dabcan qaarkoodna dadka ay ka jawaabayaan waxay ku tahay marka general knowledge waa aqoon guud iyo waxaa kaloo ka baran karaa amaba ka baran kartaa historical events dhacdooyin taariikhi ah oo hore u dhacay in laga soo daayo oo aad dhegaysatid marka ay kaan leen waxaa ka baran karaa religious lessons cashiro la xiriira diinta scientific subjects maadooyinka cilmiga general knowledge aqoon guud and historical events iyo dhacdooyin taariikhi ah oo hore u soo dhaceen su'aasha sideedaad ee ku xigta waxay tahay suggest soo jeedi ama waxaa la rabaa inaad soo jeedin samayso the program barnaamij which you are meant aad ula jeedid for entertainment madadaalo ahaan suggest soo jeedi the program barnaamij which you are meant ama which are meant aad ula jeedid for entertainment madadaalo ahaan madadaalada marka way badan tahay madadaalo fara badan oo la soo qaadan karaa waxaa ka mid ah midkaan hadda aan soo qaadanay wuxuu ku saabsan yahay juxa one day hal maalin juhas dhoonkey dameerka juxa was lost wuu lumay and he began wuxuuna bilaabay searching for him inuu dameerka raadiyo and he praises wuxuuna ku shukriyaa
and thanks kuna mahadnaqa Allah. Okay, one day hal maalin Juhas donkey dameerka Juha was lost wuu lumay, and he began wuxuuna bilaabay searching for him inuu dameerka raadiyo, and he praises wuxuuna u mahadnaqaa, and he praises wuxuuna ku shukriyaa and he praises wuxuuna ku shukriyaa and thanks Allah, Allahna uu mahadnaqaa. So saa darteed they asked him, dadkii waxay weydiiyeen, why do you praise, sababteeba ugu shukrinaysaa Allah, and thank him Allah, isla markaasna allagu mahadnaqaysaa. Why do you praise, sababteeba ugu shukrinaysaa Allah, and thank him Allah, uguna mahadnaqaysaa alle, when you have certainly, markay hubanti kuu noqotay, lost lumida your donkey dameerkaaga markay lumidiisa kuu noqoto certainly, maxaa alle ugu shukrinaysaa oo ugu mahadnaqaysaa. wuu hadlay marka wuxuu dhahay, so Juha said, sidaas darteed Juha wuxuu dhahay marka, I praise him, Allah ayaa ku shukrinayaa, and thank him Allah, waana u mahadnaqayaa, because sababtoo ah if I had been riding on the donkey, haddii aan saarnaan lahaa dameerka, if I had been riding on the donkey, haddii aan dameerka saarnaan lahaa, I would have been lost, waan la dhumi lahaa with him, isaga, that means with the donkey, dameerka ayaa la lumi lahaa. Marka what a mentality, caqliyada noocaas bal fiiri, yacni haddiiba aniga aan ku jirin wuxuu aaminsan yahay alxamdulilah, sababtoo ah wuxuu leeyahay haddii aan saarnaan lahaa waa la dhumi lahaa, anigana waa dhumi lahaa. Marka this is entertainment, waa madadaalo, waana mid ka mid ah sheekooyinka Juha. waa rajaynaa in la fahmay. su-aasha sagaalaad ku xigta una dambeyso waxay tahay, where are the Somali national radios located? where are halkee the Somali national radios, idaacadaha qaranka Soomaaliya, located ay ku yaalaan? jawaab waxaan dhahnaa marka answer, the Somali national radios, idaacadaha qaranka Soomaaliya, are located waxay ku yaalaan throughout dhammaan the Somali territory, xuduuduleedka Soomaaliya. the Somali national radios, idaacadaha qaranka Soomaaliya, are located waxay ku yaalaan throughout dhammaan, yani throughout waxay ka dhigan tahay all, throughout dhammaan the Somali territory, xuduuduleedka Soomaaliya. waa rajana in la fahmay. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo boqoto channelka, waxaa kaa dalbanaa inaad nagu soo biirto oo aad subscribe dhaato, gambaleelkana furato. haddii aad hore nooga soo biirtayna inaad muuqaalka like saarti, sheerna garaysid. waa mahadsan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.